waqtigii aan 8 sano jir ahaa waxay ahayd markii igu horeysay oon maqlo waxa la yiraahdo isbedelka cimilada ama diirimaadka adduunka. sida muuqata tani ayaa ah wax aadanaha ay abuureen oo hab nololeedkeena ku timid. waxaa la ii sheegay inaan damiyo nalalka si aan u kaydiyo tamarta, sidoo kale aan dib u warshadeeyo wasaaraha u yaraado. waxaan xasuustaa oon ka fakiri jiray la yaabna ila noqotay aadanaha oo ah mid ka mid ah noolaha inuu awood u yeelan karo inuu bedelo jawiga dunida. markii aad isdhaahdo TV-ga shido, dhammaantood waxay tabinayaan arrintaas. jaraa'idiyada caalamka, raadiyaha, joornaalada, dhammaantood wax kale ma baahinayaan sida in uu dagaalka adduunka socdo oo kale. laakiin ma jiro qof ka hadlaya arrintaas. haddii wasaqda iyo qiiqa cirka isku shareeray uu khatar gelinayo jiritaankeenna, waa maxay sababta aan u joojin la'aanahay? maxaysan u jirin wax xayiraad ah? maxaa loo sharciyeeyey? ani ahaan waxaan u arkaa hal bacaad lagu lisay. waa wax aqliga saliimka ah geli karin. markii aan 11 sano jir ahaa waan bukooday, waan moraal jabay, hadalkii waan joojiyay, sidoo kale waxba ma cuneynin. 2 bilood gudahood waxaan lumiyay qiyaastii 10 kiilo oo culays ah. mar dambe ayaa la igu sheegay cudurka loo yaqaano Asperger syndrome, OCD iyo mutism. taasi waxay asal ahaan macnaheedu tahay in aan hadlo oo kaliya markaan u malaynayo inay laga maarmaan tahay. hadda waa mid ka mid ah xilliyadaas. kuwa inaga midka ah oo wax soo bandhigo inta badan wax walba waa cadaan iyo madow. beenta ma naqaano, caadiyan kuma faraxna ka qayb qaadashada waxyeeleynta bulshada oo laga yaabo intiina kale inaad jeceshihiin. waxaan u malaynayaa siyaabo badan haddaan nahay dadka autismka qabo in aan nahay dad wanaagsan, dadka intiisa kalena uu yahay dad lala yaabo, gaar ahaan markii loo yimaado arrimaha bini'aadanimada. halkaas oo qof walba uu dhahayo isbedelka cimilada waa khatar jirta iyo arrinta ugu muhiimsan dhammaanteena, haddana uusan jirin qof ka dhabeynaya hadalkaas. ma fahmintaas? maxaa yeelay haddii la rabo in qiiqa uu joogsado waa inaan joojinaa qiiqa. aniga taas waxay ii tahay madow ama cadaan. ma jiraan meelo dahsoon marka laga hadlayo badbaadinta. waa laba mid: in aan indhaha kala furno ama aan is-hoosaasina. isbedel waa inuu dhacaa. wadamada hodanka ah sida Sweden ayaa u baahan inay bilaabaan dhimista qiiqa ugu yaraan 15% sanad kasta. taasi ayaa lagu gaari karaa bartilmaameedka ah hoos u dhaca ilaa 2 digrii. si kastaba ha noqotee, sida IPCC ay dhawaan muujisay, ujeedka halkii 1.5 darajo Celsius ayaa si weyn hoos ugu dhigi doonto saameynta cimilada. laakiin waxaan qiyaasi karnaa inta ay la eg tahay yareynta qiiqaas. saad isku leedahay warbaahinta iyo qof kastoo ka mid ah madaxdeena wax kale kama hadli doonaan. nasiib darro, qof ka hadlayo arki maysid. sidoo kale ma jiro qof ka hadlayo gaasaska wasaqeeya hawada. cimilada heerkulka aad bay usii badanaysaa. intaas waxaa sii dheer, qofna kama hadlo xaqiiqda ah in xayawaanada ay sii dabar go'ayaan, taasoo ka dhigan ilaa 200 oo nooc in ay baaba'aan maalin kasta. in heerka baabi'inta maanta uu ka sareeyo 1,000 ilaa 10,000 oo jeer wixii loo arko inuu caadi yahay. sidoo kale qofna ma jiro isku dayay inuu ka hadlo dhinaca sinaanta ama cadaaladda cimilada oo si cad loogu qeexay heshiiskii Paris, kaas oo gabi ahaanba lagama maarmaan u ah inuu noqdo mid ka hirgala dunida oo dhan. taasi waxay ka dhigan tahay in wadamada hodanka ah laga rabo inay hoos u dhigaan qiiqa ilaa eber muddo 6 sano ilaa 12 sano gudahood si loo yareeyo heerka maanta uu marayo. tani ayaa tusaale nool u ah dadka ku nool wadamada saxaraha ah ka hooseeyo inay sare u qaadaan qaab nololeedkooda iyagoo horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee aan horey u dhisnay, sida wadooyinka, iskuulada, isbitaalada, biyo nadiif ah oo la cabo, koronto iyo wixii la mid ah. sababtoo ah sideen uga filan karnaa wadamada sida India ama Nigeria inay daryeelaan dhibaatada cimilada haddii anagii wax walba haysanay aanba iska indhatireyno heshiiskii Paris lagula galay? maxaan wax uga qaban laanahay arrintan? waa maxay sababta dhibaatada cimilada u sii badanayso? ma si ula kacbaan u suubineynaa? ma dad xun baan nahay? dabcan maya. dadku waxay caado ka dhigteen waxa ay qabtaan maxaa yeelay badidoodu ma lahan fikrad ku saabsan cawaaqibka ay ku yeelan karto nolol maalmeedkayada.
mana oga in isbedel degdeg ah loo baahan yahay. Waxaan iska dhignaa inaan ognahay, sidoo kale waxaan u maleynaa qof walba inuu og yahay laakiin ma ogin. Maxaa yeelay sidee yeeli karnaa haddii runtii ay jirto qalalaase, oo haddii qalalaasahaas ay ka dhasheen qiiqayaga, ugu yaraan waxaad arki lahayd calaamadaha qaarkood. Kaliya ma ahan magaalooyin biyo kusoo fataheen, kumanaan kun oo dad dhintay ah iyo quruumo badan oo dhismayaalkoodii burbureen. Waxaad arki doontaa xanibaado qaarkood, laakiin maya, cidina kama hadasho. Ma jiraan shirar degdeg ah, ma jiraan akhbaaraad ku saabsan arrintaas, ma jiro qof xil iska saarayo. Xitaa saynis yahanada iyo siyaasiyiinta u dooda deegaanka dalxiis iyo damaashaad bay iskaga jiraan. Haddii aan noolaado ilaa 100 sano, waxaan noolaan doonaa ilaa sanadka 2103. Markaad ka fikirto mustaqbalka maanta, uma malaynaysid inay nolol sii jirayso wixii ka dambeeya sanadka 2050. taasi waxay ka dhigan tahay noloshayda kala bar in aan dhammaysanin. Maxaa xigi doona marka? Sanadka 2078 waxaan u dabaaldegi doonaa dhalashadayda 75aad. Haddii aan haysta caruur ama kuwa aan ayeeyo u ahay, malaha maalintaas way ila joogi doonaan. Laga yaabe inay wax iga weydiiyaan adiga, dadka waqtigan joogo 2018. Malaha waxay ku weydiin doonaan maxaad u sameyn weyday wax kasta iyadoo ay weli jirto waqtigii wax laga qaban lahaa. Waxa aan qabanno ama aan qaban weyno hadda waxay saameyn ku yeelan doontaa nafteyda iyo nolosha caruurteyda. Waxaan qaban weyno aniga iyo jiilkeyga ma qaban karno mustaqbalka. Markii iskuulka la furay bishii Agoosto ee sanadkan, waxaan go'aansaday in intaas uu iga ekaado. Xarunta baarlamaanka Sweden horteeda ayaan fariistay. Waxaan bilaabay in aan u doodo isbedelka cimilada. Dadka qaar waxay igula taliyeen in aan iskuulka ku laabto, halka kuwa kalena ay ii sheegeen in aan barto culumta sayniska si aan u xalliyo dhibaatada cimilada. Laakiin dhibaatada cimilada horey baa loo xalliyay. Waan haysanaa xalka iyo wixii wax looga qaban lahaa. Waxa kaliya oo loo baahan yahay ayaa ah in aan fadhiga ka kacno oo isbedel la imaano. Waa maxay sababta aan wax uga baran la'anahay mustaqbal aan dhawaan sii jiri doonin oo qof ka damqanayo uusan jirin? Maxay taraysaa barashada xaqiiqooyin ku saabsan cimilada iyadoo siyaasiyiinta iyo bulshadeena aysan waxba u arkin? Dadka qaar waxay dhahaan Sweden waa dal yar, micno ma lahan waxaan samayno. Laakiin bal ka fikir, haddii caruurta caalamka joogto lagu wargeliyo inaysan iskuulka aadin isbuucyo, waxa aan dhammaanteen samayn karno. Hadda waxaa la soo gaaray gabagabadii iyo gunaanadkii hadalkeyga. Dadku sida caadiga ah waxay bilaabaan ka hadalka rajada, tamarta qorraxda, tamarta dabaysha, kobaca dhaqaalaha iyo wixii la mid ah. Laakiin anigu ma doonayo inaan taas sameeyo. Waxaan soo marnay 30 sano oo aan shirar iyo hadal aan ficil lahayn aan waqti ku luminay. Maxaa yeelay haddii hadalkaas uu wax tarayo, dhibaatada cimilada ma sii jirteen. Dabcan rajada lagama quusto. Rajo waa u baahannahay, laakiin waxaan u baahannahay hal shay oo ka weyn rajada, oo ah ficil. Maanta waxaan isticmaalnaa 100 milyan oo fuusto saliid ah maalin kasta. Ma jirto siyaasad wax looga bedelayo arrintaas. Ma jiraan xeerar lagu xadidayo wax soo saarka saliidda. Dunida ma badbaadin karno mar haddii shuruucdii aan ku dheelayno. Sababtoo ah shuruucda waa in wax laga bedelaa. Wax walba ayaa loo baahan inay isbedelaan, waana inay maanta bilaabataa. Mahadsanidin.